Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ku dhashay magaalada Baabil ee waddanka Ciraaq. Qoomkiisa waxay caabudi jireen sanamyo, gaar ahaan meerayaasha sida dayaxa iyo qoraxda. Kadibna Eebbe Subxaanahu wa Tacaala waxa uu u soo diray nebi uu aad u jecel yahay, kana dhigtay khaliil. Macnaha waa ruux aad ugu dhow Eebbe Subxaanahu wa Tacaala. Magaciisa waa Nabi Ibraahim calayhi salaam. Nabi Ibraahim calayhi salaam isaga oo da'diisu yar tahay kamuusan raali ahayn waxa ay qoomkiisa Eebbe Subxaanahu wa Tacaala la wadaajinayaan. Sidaa aawadeed ayuu Eebbe Subxaanahu wa Tacaala qur'aankiisa ugu leeyahay, dhab ahaan waxaa siinay Ibraahim calayhi salaam hanuunkii mar hore. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu dacwada ku bilaabay aabihii oo ahaa ruuxii ugu dhowaa, isagoo adeegsanaya akhlaaq aad u sareysa, xushmad iyo ixtiraamna ay ku ladan tahay. Eebbe Subxaanahu wa Tacaala waxa uu qur'aankiisa ku leeyahay, waxaad xasuusataa markii uu Ibraahim calayhi salaam ku yiri aabihiis, aabow maxaad u caabudi wax aan waxba maqlayn, waxna arkayn, waxna kuu tarayn? Aabow waxa aniga ii yimid cilmi aan adiga ku imaanin, ee iraac aan kuga hanuuniyo jidka toosan. Aabow ha caabudin shaydaan, maxaa yeelay shaydaanku waxa uu ku caasiyay Eebbe Subxaanahu wa Tacaala. Aabow anigu waxaan ka cabsanayaa in uu ku taabto cadaabka Eebbe Subxaanahu wa Tacaala. Intaas kadib aabihiis waxa uu uga jawaabay, ma waxaad nacay Ibraahiimow, ilaahyadeydii haddaanan joojinin dacwadan waan ku dhagaxaynayaa ee iga aga fogow. Waxa uu yiri Nabi Ibraahim calayhi salaam, Eebbe Subxaanahu wa Tacaala ayaan dambi dhaaf ku weydiinayaa, oo Eebbe Subxaanahu wa Tacaala ha kuu naxariisto. Waan ka fogaanayaa adiga iyo waxa aad caabudaysaan oo idil. La soco qaybta xigta. mahadsanid.